kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijaan ugu magacdarnay diiradda sooyaalka kaas oo ka bixi doona TV-ga Puntland. barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa taariikho badan oo ka dhacay dunida aynu ku noolahay, gaar ahaanna waxaanu ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii burburka iyo ka horba ka dhacay Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaanna gobolada Puntland. sidoo kale intaan ku jirno barnaamijkan waxaa ka heli doontaan muuqaallo isugu jiro kuwii hore, kuwii dhexe iyo kuwa hadda la jooga oo xiise gaara leh. balse ugu horreyntii aanu ku bilowno barnaamijkeennan. dalka Soomaaliya wuxuu ku yaalaa geeska qorax ka soo bax ee Afrika ugu baaleeya. waayadii hore dadka shisheeye waxay u yaqaaneen dhulka Soomaalida magacyo kala duwan. masaaridii hore way u talin jireen boqorradii lagu magacaabi jiray Fircoono, waxay u yaqaaneen Punt ama Puntland iyo dhulkii udgoonka, eeyada iyo foolka maroodiga. waxaa kaloo ay u yaqaaneen Tiira oo ah dhulkii eebayaasha amase dhulkii daahirka ahaa. dadkii hore ee reer Greek iyo reer Rome waxay ku magacaabi jireen Barbaroy. carabtii hore ee dalmarka ahayd magaca hore ayay u yardooriyeen oo ay ka dhigeen dhulkii Barbar ama Barcajab. magacaas oo loo aqoon jiray magaalada Boosaaso wuxuu ku tusinayaa xiriirkii ay Iiraaniyiintu la lahaayeen dadka Soomaalida waayadii hore. reer Yurubkii Afrika soo saamiyay xilliyadan dambe waxay dhulka Soomaalida ku magacaabeen geeska Afrikada bari, magacaas oo haatanba loo yaqaan. gumaysiyaashii dalka Soomaaliya haystay wax yar bay ka qoreen taariikhda Soomaalida, waxayna isku dayeen inay ka been sheegaan una raadgadaan. sidaas daraaddeed wixii taariikhdaas tilmaamayay ilaa iyo haatan gacan laguma hayo. reer Iiraan oo dalka u soo safri jiray waxaa u badnaa meelaha ay degi jireen xeebaha ku soo jeeda badda Hindiya oo ah gobolka Banaadir iyo Jubbada Hoose. iyagii carabtuna si fiican bay wax uga qabteen dhulka dhisidiisa iyo ganacsiga dhaqdhaqaaqeedaba. imaatinkii carabtu waxay kordhisay reer magaalnimo iyo ilbax oo si door ah dalka Soomaalida wax u taray. hase ahaatee si uu canuma ogin loona garan maayo labada qolo midkoodii ku soo horreeyay degitaanka. waxaase loo malaynayaa inay qolo walba mar ku lahaan jirtay xoog dhaqaale iyo mid siyaasadeed. qolo kastaana way ka qayb gashay islaamka fidintiisa haba u badnaata carabtii. dadka Soomaaliya wuxuu dhaxal u lahaa codantinimo mood iyo noolba, waxaana ka iibsan jiray dadka shisheeyaha. sidaas daraaddeed safaradii dalalka shisheeyaha ee dalka Soomaaliya wax ka iibsan jiray waxay qoreen warar cadaynaya codantinimada dalka iyo dadka Soomaalida aqoontiisa. haddana inkastoo kumanyaal sano ka soo wareegatay sidii buu hodan weli uga yahay moodkiiyo noolkiiba, kuwaasoo kale ah eeyada, marmalka iyo baalgorayga, xoolo nool, dabjoog iyo durjoogba.
arrimahaas aan soo sheegnay ayaa sare u qaaday dhaqdhaqaaqii ganacsiga soomaalidii hore, xiriirna ka dhex abuuray iyaga iyo dalalka shisheeyaha. taasina waxaa ka dhashay in la helo warar waxtar doora u leh taariikhdii soomaalida. dhowr dal oo shisheeye ah ayaa dalka soomaalida la ahaan jiray xiriir ganacsi oo xoog leh. soomaalida hore oo ku magacdheereed buunti iyo masaaridii ay u talin jireen fircoonad waxaa u dhexan jiray xiriir ganacsi oo xoog leh. reer masarina ganacsiga soomaalida doorbidi jireen, waxayna rumaysnaayeen inaan ilaahyadoodu raalli ka noqonayn haddaanan u foocin eeyada dhulka soomaalida. gadislaydii masaaridu waxay ku qoreen derbiyada meelahay wax ku caabudeen waxyaalahay ku arkeen ama ka soo iibsadeen dhulka buunti. saaxo raac oo u talin jiray dalka masar 2550 dhalashada nabi ciise ka hor wuxuu u diray dhulka buunti safar badda ku dhoofay, wuxuuna soo iibsaday eeyo iyo waxyaalo kale oo badan. maxaadkii labaad uu u talin jiray masar 1920kii dhalashada nabi ciise ka hor wuxuu u diray buunti 2 safar. mid waxaa ka madaxaa ninkii xoolaha boqorka hayn jiray khanti awr, kan kalena wuxuu ahaa khantum xatab. hase yeeshee boqoradii masar xabsashuud safarkay u dirtay buunti wuxuu reebay sheeko taariikh leh oo naarta ah. safarka oo dantiisa weyn ahayd inuu beeyo dalka soomaaliya ka soo qaado wuxuu ku soo dhoofay 5 dooyood oo waaweyn, waxaana madax ka ahaa nuxus oo xoolaha boqoradda hayn jiray. dooyihii waxay ku socorteen furdada olab oo u dhow raas casayr gardafuul. moodkay wax kaga soo gateen dhulka buunti waxaa ka mid ahaa kuulo, jijimo, bilaawayaal iyo sanaadiiq. waxay masar ula soo noqdeen waxaa ka mid ahaa daanyaro, haramcad, beeyo iyo geedo badan oo ay soo rujiyeen si loogu tallaalo dhulka masar. safarkii markuu guryo noqday kadib ayaa guriga boqoradda ee la oran jiray daarilbaxar lagu xardhay sheekadii ay ka keeneen dhulka buunti. derbiyadii masaajidkaas waxay ku sawireen weelashii soomaalidu ay yidhaahdeen waxay ka hoos dhisnaayeen geedo gob ah, waxaana lagu fuuli jiray jarjaro qoryo ah. waxay ku tilmaameen looda buunti inay geesagaaban tahay, eedeeduna cadcad tahay oo dhagabalaqsan tahay. waxyaalaha kale ee derbiga ku sawiran waxaa ka mid ahaa boqorka dhulka buunti barxow iyo boqoradiisii iti oo ay ku tilmaameen inay aad u buuran tahay. waxay kaloo ku sawireen 2 wiil iyo gabar ilmo boqor ah iyo 3 nin oo mididina ah oo midkood dameer haran hogaaminayo. sidaasoo kale waxay sawireen 5 dooyo ee safarku watay oo ku soo xirtay furdada olod, hoostoodana waxaa ka muuqda badii iyo kalluun tiro badan oo kala jaada. taasina waxay ku tusaysaa dhulka soomaalidu inuu hodan weligiiba ka ahaan jiray munaafacaadsiga kalluunka. ayaa boqorkiisa sidaal siciid barqash talyaaniga ka kireeyey xeebaha banaadir, warsheekh iyo baraawo inta u dhaxaysa oo ah dalkii barqash u talin jiray. waxayna ku heshiiyey in talyaanigu siiyo 144,000 oo shilin sanad walba muddo aan 25 sano ka yaray 50 sanada ka badnayd.
1884 ayaa gumeysiga ingiriisku qabsaday gobolada waqooyi ee dalka Soomaalida waxaana marmarsiye ka dhigtay heshiis been ah oo la samaystay odayaal ay wada shireen goorta taladii gobolka gacanta ku dhigayna heshiiskii uu duqeyda la dhigtay oo ahaa in dalka kor ka ilaaliyo waxba kama filin waxaana bilaabmay inuu dadkii dalka si ba'an ugu gumaysto wuxuuna isku dayay inuu dadka Soomaalida kala diriro xagga diinta iyo xagga dhaqankaba. ayaa ingiriisku gobolkaas webiga Jubba ku soo galay magaca shirkad ganacsi ah laguna magacaabi jiray shirkadii ingiriiska ee Afrikada Bari taasina waxay ka dambeysay heshiis ay shirkadaasi samaysay niman boqor ah iyo doqon madax u ahayd dadkii dhulka deganaa 1905 ayaa taliskii ingiriisku maamulkii gobolkaas shirkada kala wareegay wuxuuna gobolkaas haysay 23 sano marka lagu daro intii shirkadu maamulka haysay. ayaa ingiriisku taliskii gobolkaas Jubbada Hoose ku wareejiyay Talyaaniga waxaana fulinayay ballan ay kala dhigteen oo ahaa in Talyaanigu la galo dagaalka koowaad ee adduunka. waxaana dhisay dugsiyo uu carruurta ku baadiyeeyo oo lagu baro diimahooda taasi waxay keentay inay dadka Soomaalida oo wada muslim ah ka caraysiiso waxayna ka fursan waayeen in la dagaalamaa. daraawishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo madaxda u ahaa wuxuu dagaalamayay muddo ku dhow 25 sanadood wuxuu dagaalkaasi bilaabay sanadku markuu ahaa 1895 markii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ka soo noqday xajka wuxuuna dhamaaday 1920 kadib markii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku dhintay Imey oo ka mid ah ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya. waxaan taariikhdu horta waxay ahayd halgan dheer waqti dheer soo jiray wax badan oo raggii laga soo gaaray ama raggii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan arkay ama raggii xarun istaagay ama raggan hadeer ku qoran diiwaanka ku qornaa ee wax laga qoray rag badan baan runtii arkay haday Xaaji Axmed Biixi Boos tahay haday tahay Faarax Baqarle tahay haday tahay Xaaji Cali Abukar oo Sheekh Bashiir Xaaji Abukar iyo ay walaal ahaayeen oo ahaa ninkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii geeridiisii waqtigii Imey la joogay kelmadii ugu dambeysay ee sayidka afkiisa ka soo baxda kelmadaas ugu dambeysay yiri intii uu adigu shahaadadii iyo tawxiidku uu hoosaga akhrisanay mooyaane kor u yiraahdo kelmadu kor u yiraahdo ugu dambeysay joogay waa arkay inta uu berbera yimi oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan berbera joogay dhaqdhaqaaqii uu berbera ka sameeyay oo goor duhuradii uu ka soo ambabaxay markii uu jidka soo maray waxa jiray laba meelood oo waaweyn oo mesela Dhaymoole iyo meelihii laga sameeyay iskuulada waaweyn laga furay ee Kristanka marka Ingiriisku ku sameeyay waxa jiray iskuuladii inuu inama la hadlay inamada uu ku yiri war kuma tahay waxaan ahay I am Joseph baa la yiraahdaa waxaan ahay Joseph baa la yiraahdaa Joseph ina Sheekh Cabdullaahi baan ahay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Hebel wuu gartay war maadigu ina Sheekh Cabdullaahi baa Joseph lagu yiraahdaa adiguna maxaa tahay waxa la sheegay galabta wuxuu iska qaninay bushintaas hoose caradii jibaada oo waqtigaas oo aad u jibaysnaana waa hays halka markaa uu berbera ka tagay arinta uu soo maray Dhaymoole iyo meelaha soo maray wuxuu abaabul ka galay aagaas ilaa iyo Buuhoodle ilaa Burco oo aagaas oo markaa ceel ahayd toga Burco oo ceelal ahaa wuxuu isugu keenay marka 1900 iyo 1900 markii waqtigu ahaa waxa halka isugu keenay ciidan la yiri wuxuu ahaa ilaa 7,000 oo nin oo 5,000 oo kamidi
ay hubaysan tahay 5,000 ee kamid ay hubaysan tahay markaasa ingiriiska waxa lagu wargeliyay in maxaan ku yiraahdaa uu dagaal lagu qaadayo ama uu dalka iskaga guuro oo nabadgelyo bixiyo oo nabadgelyada qiimaheedu yahay dalka uu ka guuro ma qiimo kale xoolo iyo lagu miisaamin markii la dagaalkaas uu galay ciidankaas halka la abaabulay ayuu marka halkaas dagaalkaas ciidankaas isugu keenay dadku iyagoo kulligood aad u abaabulan bay marka halka la isugu yimi ciidanka 7,000 baa yimi ilaa 5,000 oo kamid ah ayaa marka hubaysnaa oo ragii hub kale ahaa ilaa 2,000 waxay ahayd ciidanka waran laha loo yaqiinay oo dadka kale oo aan iyagu qoryaha lahayn ilaa iyo 43 goobood inay dhacday in mesela laba kamid oo afbakayle iyo jidbaale meelihii daraawiishta lagu jabiyay ahayd afbakayle dadku waxay u yaqaaneen haradhiigna waa u yaqaaniin waa meel magaalada Yagoori kor uga sareysa daraawiishtii gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo wixii la halmaanay goob badan bay ku kulmeen waxaa ka mid ahaa Dulmadoobe oo lagu dilay abaanduulihii ciidanka ingiriiska oo lagu magacaabi jiray Richard Coffin Jidbaale Cagaar Weyne ilig iyo kuwa kale oo fara badan Coffin jiitayaan dunida joogayne adiga jidkii lagu waday jimiclaanade جهنم لقيه وآخر جهنم نمكي جنوك عي وربي جرين شاليين كواس النار تجوغيو مركب جنان نبي قادت sidoo bahay ku jeerabay mari jawaabteeda daraawiish jigraar nagama deyntani iyo jeerkeedeen jifta weerar bay goor barqaca nagu jifeeyeen ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jacyi iyo baaruudne weligiisba waa lagu jabshaa jilib dhigdulandeen haddaan laysjigraarayn tolkay laga jilroonaadeen waxaynoo junjunteenna waa jamaashadiinine anigana jigrey ilaa helay shalay jaadkeedheen jeenigaa hortiisay rasaas igaaga jiidandheen jidhaayaday ilaa dhicin jili cafkoodiine سيد محمد ميشو دغبا wuxuu daraawiishta uga dhisi jiray daaro ay ku dagaalgalaan xaruntiisuna taleex bay ahayd waxaana ka dhisnaa qalcad weyn oo adag waxaase nasiib darro ah in gumaysiga ingiriisku ay burburiyeen kadib markii weerar cirka ay ku soo qaadeen waxaa la duqeeyay horta deegaamada goobaha daraawiishta waxay ka mid ahaayeen 40 goobood 40 saldhig bay daraawiishtu lahayd 43 saldhig bay lahaayeen daraawiishtu sida hadda taleex iyo ayl oo kale iyo loo yaqaan midhashi oo kale iyo maxaan ku leeyahay buraan oo kale iyo loo yaqaan dalyaro oo kale loo yaqaan kur ilaalo oo la ascaano dusheeda loo yaqaan oo maxaan ku yiraahdaa koonaha waxa uu xigtay beledweyne oo xaruntii uu joogi jiray ninkii loo oran jiray cagadhiig la magac baxay halka ay Soomaalidu ka tiraado af gaalaad iyo af muslimiin ku hadla wuxuu ahaa Xaaji Maxamed cagadhiig buu ahaayo cagadhiig la baxay markii daba Talyaanigu daldalay oo isaga ragii la qabtay buu la daldalay buu kamid ahaa koonahaas ugu xigay
ilaa iyo meesha la iimay iyo horushagax iyo wardheer iyo dhulkaas sidaas xarumihii bay ahaayeen 43 saldhig bay ahaayeen daaraha ka sidana waxay ahaayeen 53 daarood 53 daarood meel ay laba ka dhisantahay meel mid ka dhisantahay meel afar ka dhisantahay meel been kasta ka dhisnaato 53 daarood baa ka dhisnaa 53 daarood waxay ka dhisnaa 43 saldhig bay ka kala dhisnaa u qaybsanaayeen meel been kasta ka dhisnaatay meel laba meel mid meel afar meel kullu saasahay saldhigyadaas badankooda waa la duqeeyay meel alle meeshii ay joogeen oo daraawiish lagu tumay ciidan lagu tumay dadku waxay yaqaanaa talaax baa la duqeeyay waa arrin weyn oo taariikh ah oo meel Afrika ah oo sida taariikhda aynu ku aragnay Afrika meeshii ugu horeysay oo diyaaradii ay duqeyso waxay ahayd xarumihii daraawiishta dadku talaax baa loo yaqaanaa oo xaruntii markaa uu deganaa sayidku bay ahayd laakiin jiidali iyo midhashi iyo ayl iyo maxaan ku iraahdaa buraan iyo maxaan ku iraahdaa dalyar kuwaasoo dhan waa la duqeeyay waa la soo garaacay waa la soo baabiyay wax way socotay garaacis waa socotay rag badan baa lagu laayay dadku wax markaa ummaddu way isu soo baxday wixii xarun joogay wixii dhulka joogay dad cid tirsanayso ma ahayn wixii yar iyo wixii waaweyn bada way iskaga dhacayeen waa ku baabeen ummadda meel lagu baabay bay heedo deedaan dadaan u naxayn baa dunida aad u garaacayo adduunka markaa ingiriisku waxa la sheegay go'aankii ugu weynaa uu gaadhay inuu yiraahdo sida dawladaha waaweyn ha loola dagaalamo go'aankii baarlamaankiisa uu soo gaadhay dadkii Soomaalida waxa lagu soo rogay markaa dabadeed qawaaniin adag oo fool xun oo ay u dulqaadan kari waayeen qaabta dhacday waxay ahayd sayidku wax badan buu sii sheegay horta taariikhda marka la eego gabayo badan buu ku sheegay in dirham waxaad cunaysaa intaan dunida joogaaye wax badan buu aad uga sheegay markaan anigu tago baa laydin qaadanayaa waxa dhacday boqor Cismaan waa la xidhay maxamuud cali shire waxa la geeyay shiisalis baa la geeyay oo dhowr caruur ku dhalay waliba 4 sano halka ku xidhnaa cali Yuusufkeedii isagana waa tii laga soo wareejiyay meeshiiba la soo baabiyay inay iga raaxataa yimiyo halka ka soo xagga ka soo qaaday ingiriisku soo kaxeeyo ninkii ugu sarreeyay darajo Soomaalidu gaadho ahaa halkaas lagu baabiyay ragii waqtiga uu ingiriisku maalinta warqadda soo qoray uu ku faanayay oo lahaa ma ilaa xabashida uu ku faanayay ninkii mar qabsaday muslimka ahaa ee Ilyas oo oran jiray maanta كل أنت أصلاً وعنك صاحبة زي محمد علي شيل كل ما تشيله بقر اسمه كل ما تشيله يوسف كندي يوسف كندي كل ما علي كندي كل ما تشيله واحد أصلاً وصاحبة زي ما أنت مركا إسديب مركا واقي وجواب يسيد كوحي واقي قلنا له معناها أودنك إلى السيالة أدينا هذا كنا محتاجين هالكي هره إن عندنا تجيله بحسه أو هي قيمة هذو تلقوا أذكر جورت halka waxay ka dhacday marka waxa intii oo dhan way dhacday intiiba wax la qabtay iyo wax la xixilay iyo wax la lahaybay noqotay ma kala jeclayna waa kala xaday boqoradii iyo ragga ugu waaweyn ragga la laayay ee la xixilay bay intii madaxda ka ahayd dadkii halganka ku jiray markii hore ee markii dambe siyaasad ahaan uu ugu hanjabay gacanta u galay ayuu haddana markii sayidku dhintay kadib sidii sayidku u sheegay taariikhda gabayga ugu marinayay baa iyagina la raaciyo leeyri waa la kala xaday awal wala ma kala jeclayn goobaheedu way badnaayeen ama beelaha uu sayidku kala sameeyay way badnaayeen oo dhowr beelood bay aad iyo aad u badnaayeen talax galiyana ma ahayn dhul badan bay ahayd waddanka Soomaaliyeed ka mid meesha ugu xallig waxaana halkan ay ahayd saldhigga weyn halka meeshu waxay ahayd baabka weyn hadee silsilado maadar meesha fadhiga silsilad bay ahayd ciidankuna u fadhiyo fardahana wixii la qabanayo lagu soo hooyo bay ahayd gurigan xaggan ka xigana waa daari laalo oo dhisay waa fala kan xaggan buurta saarayna waa daari laalo guriga ceelka ku dhisan yahayna daar ka dheer bay waxa la oran jiray eegi baa la oran jiray taarta fala dara ceelkana weyn hay meel jeela oo dadka lagu xidhana weyn meesha falaad iyo dadka maxaabiista oo la qabto baa lagu xidhi jiray sheel bay hay'ad iyada warkeeda aan ka hayaa gurigaas eegi meesha la yiraahdo weyn falaad waa meesha xagga kana haydo deysayid fariisan jiray markan waa meeshu deefari ka bileeyahay ninkii fikado fariigeeyo falaad fasalkeeda sheeg marka guriyada la dhisay ninkii fikado fariigeeyo falaad fasalkeeda sheeg waa meeshu marka falaad meesha xagga xigta weeyo guriga xagga weeyo de gurihii waa dhulkii waa dubay oo waa burburay oo de dhul buu ahaa madaafiic la dhacay oo dawladdu Ingiriis baa dhulka baaqisay way jiraan qubuuriye ama hooyadii ama aabihii ama xaas uu qabay ama dad badan oo kale to aniga dadka kale to hadeer ma sugnaa
laakiin aabihii iyo hooyadii iyo xaaskiisii iyo gawa ka gaar iyo waa laga wada garanaya walaha de markii horta darwiishtu abaar baa ku dhacday meesha abaar laxaad leh oo marheebaha baa meesha ka dhacday abaartii markii ka dhacday xaggan waa ka kacday daraawiishtu waxay aaday meesha la yidhaahdo guriga la yidhaahdo gurigii looga guuri jiray baran bay tageen markay baran tageen asanaag bay guureen halkaa markay joogeen way soo noqdeen xalin bay mareen ma soo noqon magaalada ma ay tegin markaa waxay ka baxeen halkaasay ka baxeen mabaxaasay ku tageen markaa dowladda ingiriiskuna halka kan bay tiri waa markay maraafiicii la dhacayso haddii markaa maraafiicda ay la dhacayso sayidkuna warqaduu soo diri jiray waa gabi jiray gabayla warqadaa buu soo diri jiray iyaguna dee layskuma dhiiranayno waa laga baqayey markaas wax kastoo ha qabeena waa laga baqayey waxay markii dambe wadaanba waa kuwa ka baxay lascaan waa barbarkiisa waa kuwa ka fadhi baxay sidaasay ku tageen markaas way ku ambabaxay dalka karaab dowladda ingiriiskuna maalinta la leeyahay halkan ay ka kacayaan oo halkan marayaan 3 gubni oo istaba jooga bay keentay meesha la yiraahdo gumurka qowrood baa qayb lagu reebay qaybna buurta soo jeeda oo magac la yiraahdo lagu reebay laba ciidanna halku soo galay ciidankii halkan soo galay halkaas ay ka laabtay si lagu yiri maraafiicdii markaa magaalada la dhacay magaalada markaa cid joogtaba dad iska hadaa dumay iyo wax baabay iyo mooyaan wax dhaqan oo markaa de muxtamar ma jooga markaa meeshu sidaas ay markaa ay ku tii dambeysay markaa dabadeed 20 sano kadib dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa ka bilaabmay dhaqdhaqaaqyo gobonimo doona waxaana ka mid ahaa ugu xogweena kii lagu magacaabi jiray ururka dhalinyarada Soomaalida SYL waxaana aasaasay 13 wiil oo Soomaali ah bishii May 15keedii 1943 dhaqdhaqaaqaasna wuxuu ka bilaabmay magaalada Muqdisho oo xarun ahayd gobolada Koonfureed gobolada waqooyi ee Ingiriisku u talin jirayna waxa ka bilaabmay dhaqdhaqaaqyo gobonimo doona oo ka mid ahaa ururkii wadaniga ee Soomaalida SNL ururadaas oo doonayay sidii gobonimo ay ku gaari lahaayeen dhammaanba ummadda Soomaalida meel joogtaba waxa ka mid ah waxyaalaha dhacdooyinka dadku way ku fogaadeen Ingiriiska iyo jacay qaar baasaas ninkii loo jiray Sheekh Nuur Xaaji Nuur Ciise ragii ay xalaashi iyo ragii aad ugu dhowaa Ingiriisku aad u jeclaa leegadii iyo ragii dambe halganka bilaabay ee Soomaalida bilaabay waqtigeediina soo gaaray oo aad u nabca wuxuu aad u jeclaystay taariikhda waxa ka mid ah in maalmaha ka mid ah ay lumeen digaag buu lahaa gurigiisa joog jiray Xaaji Nuur Ciise wuxuu yiri digaagii waa la waayay baa la xaaji la waa digaagii xagee galeen waa la waayay goorta habeenkii laga wasamro la iska waayay baa maalinta dambe la soo helay habeenkii dambe la helo waxa la yiri digaagii xagee ka soo hesheen buu yiri wuxuu gurigii leegada galeen wuxuu gowraca mar haddii guriga leegada galeen kuwa maba arki kare iyo gowracaas halka arintu gaadhay inuu xataa digaagii galay uu gowraco baa maantii dambe Xaaji Nuur Ciise wuxuu galay leegada lafteedii oo ka mid noqday war Xaaji Nuur Ciise maxaa kugu dhacay baa la yiri Sawdigii sidii loo goynayo ilaa digaagaaga wad gowracday wuxuu yiri adeer waxaan ka liitaa ishabar miyaan ka liitaa yadan habraha arki jirin buu yiri marba meesha dabayshu u dhacayso ay guriga ka jeediyaan buu yiri oo dhabarka u jeediyaan dabayshu xagaagiina xagga uga jeediyaan si aan uga hor iman dabaysha saana uga hor iman xagaagii diraacdiina xagga u jeediyaan buu saana uga hor iman marka ma habar baan ka liitaa buu yiri meesha dadku u socdo waana u socdaan Israaciil buu yiri waxaad garanaysaa isbedelka sida uu u dhacay Soomaalida darajadii markii dambe dhibaatooyinkii ku dhacay ururkii dhalinyarada ee SNL iyo SYL waxa mar walba heeso gabayo iyo geeraro la garab taagnaa suugaanleyda Soomaaliyeed sida ay heestaan inoo tilmaamayso oo uu qaadayo Allah u naxariiste Cabdullaahi Qarshi
ayaa Talyaanigu hore u sii galay dalka Soomaalida oo xoog ku qabsaday gobolada Jubbada Sare, Hiiraan, Mudug iyo Boosaaso inkastoo lala diriiray. markuu Talyaanigu xabashada ka adkaaday ee gacanta ku dhigay ayuu qabsaday gobolada ismaamulka Soomaalida Itoobiya. 1940 ayuu haddana Ingiriiska ka qabsaday gobolada waqooyi. kaliskiisana waxa lagu magacaabi jiray fashisti oo ah gumaysigii ugu xumaa adduunka oo dhan, gaar ahaan dadka beeraleyda Soomaalida si xun buu kula dhaqmi jiray. Talyaaniga waxa dhulka laga kiciyay 1941. ayaa wadamadii Gaanshabuurta ee dagaalkii labaad ee dunida ku adkaaday. Talyaaniga kula heshiiyeen dalalkii Afrika ee gumaysan jiray oo Soomaaliya ka mid ahayd inaanu sheegan iskana daayo. Ingiriiska oo 4 gobol oo dalka Soomaaliya u talin jiray ayaa damcay in Soomaali weyn la abuuro, madaxda midoobay isaga ammaano ahaan ugu dhiibaan si dawladnimo u gaarsiiyo. hase ahaatee madaxdii kulanka dhalinyarada Soomaaliyeed Ingiriisku ma afkaran, ujeedadiisina dareen baa ka galay. ayaa ummadaha midoobay dalka Soomaalida u soo diray guddi isugu jira 4 dawladood oo adduunka ugu waaweynaa, kuwaasoo kala ahaa Ingiriis, Faransiis, Mareykan iyo Ruush, si ay dadka Soomaalida u weydiiyaan wuxuu ayagiisa dambe ka damacsan yahay.
dabadeed madaxdii kulanka dhallinyarada soomaalidu waxay guddigii weydiisteen in afar dowladeed ee adduunka ugu weyn soomaalidu wadajir u ilaaliyaan gobonnimadoodana gaarsiiyaan 10 sano kadib. hase ahaatee talyaaniga oo doonaya inuu dalka soomaaliya gumaysi ahaan ugu soo noqdo ayaa magaalada muqdisho qalalaasi ka kiciyey intii uu guddigu joogay. November 1949 yaa fadhiga ummadaha midoobay gooyeen in gobolka Soomaalidu magan u ahaado ummadaha midoobay in ku sugan 10 sano. Talyaaniguna maamulka u hayo isagoo ummadaha midoobay wakiilka ah. dowladihii gumaystayaalka ahaa markay ka adkaadeen oo baabi'iyeen dhaqdhaqaaqii daraawiishta ayay xukunkii dalka Soomaalida si wacan gacmahoodii u gala. ayaa talyaanigu ingiriiska kala wareegay maamulkii gobolka koonfureed. kulamadii dhallinyarada soomaaliduna waxay ku ahayd qarqarsi. talyaaniguna kolkaasuu bilaabay inuu dhulka ku soo celiyo gumaysigii foosha xumaa iyo maamulkii addoonsiga. xisbigii leegada oo dhaqdhaqaaqa madax bannaanida horseedka u ahaa aada buu talyaaniga maamulkiisu isu hortaagay. 1956 ayaa talyaaniga dani ku qabatay inuu maamulka gudaha dalka ku wareejiyo dadka soomaalida ah. SWL waxay ku soo gaadhay waqooyiga xaggana waxa la oran jiray SWL markii ay bilaabatay oo Soomaali ay isu baaqday. waxa jirtay aniga aabahay wuxuu ahaa isagoo cadan ka yimi oo raggii cadan markaa leegada kamid ahaa oo tirsanaa raggii dadku intii gobonnimadoonka bilowday asaasayaashii baa maaragtay dhowr 12 nin halgamayaashii ugu waaweynaa baa la qoray. laakiin dadkoodii shacabkoodii kale ee leegada wada ahaa ila shacabkii waa raacay iyaguna kamid ahaa. isagoo cadan ka yimi oo sita funaanad oo cadan kala yimi oo qurux badan halkaas sita bay halka dhinaca ugu dhagsan tahay lafa la qoran jiray oo dadku lafaha geela baa laga sameeysan jiray. nin waliba calaamad halkaas niman baa qori jiray oo sameyn jiray. isagoo laftii u xidhan tahay halka leegada u xidhan tahay xafiiskii ingiriiska iyo markii local authority la sameeyay dadkii qaarna ay qaateen local authority dadna ay raaceen qaarna ay diideen. marka dadku intii marka local authority oo local government oo deegaamayntii waxaas ingiriisku uu ku baaqay sameeyay qaadatay waxa loo yaqaanay inay gaaloobeen oo dad gaalooba gaala raacay. intii diidayna waxa loo yaqaanay waxaan ku raada inay yihiin dad ka nabad galay. intaas markay istoonan jirtay oo isjeclayd diiday local authority halkaas marka ingiriis xafiiska ingiriisku soo galay isaga oo marka ay rag badan yihiin ay leeyihiin annagu waanu diidnay local authority ma galino madaxna waxaan noo cidii local authority diiday sida iyagoo leebu soo galay. adoo hadalkii markii la raacay wuxuu yiri annaga cidina nagu ma matasho haddaan nahay reeraha haddaan nahay dadka haddaan caynkaan nahay waka oo marka dadkii u kala qaybsana yaa si Cismaan keena diid ilaa waqtiga uu madaxda u ahaa iyo intii taariikhda ku soo baxday 13 leegada. Abdullaahi Ciisana wuxuu markii uu dhintay isaga bedelay wuxuu ahaa gudoomiyihii markii dambena dawladii dakhiliga ee maxaan ku raada kontonkii markii dakhiliga la siiyayna noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee Soomaaliya. marka leegada ahaa ee aad u barteen oo Soomaalidu inay qorto oo lagu Soomaalida luqad looga dhigo lagu sameeyay waa farti Cismaaniyada la sameeyay. Cismaaniyada oo si fiican marka u hirgashay oo dadku ay inta badan waliba in la shaaciyo awood dhaqaale iyo awood dawladeed ba marka loo laahay in la shaaciyo oo dadku ay marka doonayeen in luqada ay ka dhigtaan afartoodii oo heer hirgasha. meesha laga ikhtiraacay markii dambe lafteeda oo xataa la faaleeyay la isku qabtay teebeen ka dhignaa waqtigii 12 markii Soomaaliga la faafinayay waxay ahayd meelii la soo qaatay laga markii hore laga duulayay hayano manbacay hore in la sameyn karo laga ogaaday is afkaranshaha iyo xiriirkii ka dhaxeeyay ilaa af Soomaali kale ma jirin oo la qorayay oo ay isku fahmayeen oo si fiican loo qorayay. dadku wixii Carabiga yaqiinay oo gaar bay ahaayeen laakiin tii caamka ahayd markii aad loo fahmayay oo si fiican uga hirgashay waxay farti Cismaaniyada ahayd oo aad loo hirgeliyo dadku ay waliba si fiican uga hirgashay dadkii marka hawlaha ku jiray ay aad u wada fahmeen oo meel fiican gaadhay. markii dadka
dadka soomaalida ee koonfur gacanta loo geliyay maamulkii gudaha dalkooda. dadka soomaalida gobolada waqooyi dagaal iyo halgan bay hayeen si ay gumaysiga ingiriiska uga hoos baxaan madax banaanadoodana u helaan isuguna darmadaan walaaladood gobolada koonfureed 1960. wuxuu gobolada waqooyi u tirin jiray 76 sano wuxuuna ka baxay Juun 1960 maalintaasna waxaa la dejiyay calankii Ingiriis waxaana la taagay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo midabkiisu cirka u ekaa xidig cad oo shan gees ahna bartamaha ku lahaa halka gobolka koonfureedna waxay gobonnimadooda heleen 1 Juulaay 1960 isla maalinka ayaa labada gobol ee koonfur iyo waqooyi isku darmadeen waxaana ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxa ka buuxa saad ka warqabtiin dib badan aynu soo maray yaa laga sheekayn karaya sugu tiro badan oo aan sugnay baa laga sheekayn karaya rajooyin badan oo wax badan aan wakhtiga kan sugnay baa laga sheekayn karaya intaasoo dhan ayagoo wada jira waxay ku dhigan yihiin qaluubtayada ayagoo shay keliya ay yihiin maanta waxaynu nahay Soomaali baan nahay maanta waxay nahay xor talada iyada gacantana inoogu jirtaa waqtiga kan aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor dawlad oo adiga gacantiina ku jirtaad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad iyaad leedihiin waa gallad ilaahay waa inaynu adkaynaa oo aynu dhowrnaa adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badan ay nagala joogto maraka ka ahaado rabiddayada aad aynu u doonayna aan u rabno inaynu jecel nahay shucuubka adduunka inaan wanaag xiriir wanaagsan inaynu la lahaano calankaanu sugaynayeen saankiisaynow seerma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadii naga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guuraye sareeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegno ka nasiibkana saare saahidiinta islaamkoe subxisaa jimcayaashiyo siryaanta iyo haweenku calankay sanadseenow cidina kaanayna siinine saatir noogu yaboohayow saaxirkii kala guuraye sareeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegno ka nasiibkana saare. daawadayaal waxaanu intaa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii diiradda sooyaalka oo aanu kaga hadlaynay taariikhda hore ee Soomaaliya tan iyo intaan mid kan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.